wacan oo wanaagsan daawadi halkan waa barta YouTube ee barta wararka qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isoristaag ku sameeyay in markaas uu u tartamo xildhibaannimo agaasimihii hore ee NISA haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu isoristaag ku sameeyo taliyihii hore ee NISA maamulka Jubbaland waynu idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya guddiga doorashada Hirshabelle oo shaaciyay odayaasha iyo xubnaha soo xulaya saddexda kursi ee markaas uu ku jiro hoob 86 markaasna uu doonayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waynu isla eegi doonaa علي جودلاوي waxa uu boqolkiiba boqol la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u ballan qaadaya in kursiga ka yaala Beledweyne uu ku soo bixi doono isaga oo markaasi ugu abaalgudayo kadib marka uu ka dhigay madaxweynaha maamulka Hirshabelle waynu isla eegi doonaa sida ay ku aqbali doonaan beelaha daga Beledweyne in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu halkaas soo gaaro iyo goorta lagu wada kuraastaas in la qabto waynu isla falanqeyn doonaa qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya Maxamed Cabdalla Axmed oo si weyn ay u doonayso dawladda Kenya ayaa maanta xildhibaan loogu doortay degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii uu ku soo baxay kursiga tirsigiisu uu yahay hoob 145 ee uu hore ugu fadhiyay gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey waynu idin soo gudbin doonaa hadii Rabbi uu ka raali noqdo iyo sidaas oo kale Maxamed Cabdalla Axmed oo qayb ka noqonaya saraakiisha xubnaha NISA ee ka soo muuqan doono baarlamaanka 11aad isla markaasna saaxiib dhow ay yihiin la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waynu isla eegi doonaa qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta soo gabagabeeyay kuraasta doorashada golaha shacabka ee markaasi deegaan doorashadoodu ay ahayd deegaanka labaad ee Barawe waynu idin soo gudbin doonaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu noqday maamulka kaliya ee soo dhameystira isla markaasna soo gabagabeeyay kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashada labaad haddaba waxaynu eegi doonaa xubnaha xildhibaanada ah ee markaasi ku dhiman maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee laga sugaya in ay ka soo baxaan Baydhabo iyo xubnaha maamulkaas ee maanta Barawe lagu soo doortay waynu isla eegi doonaa qodobadaas iyo qodobada kale ee lagu soo kordhay inta warkayaga aynu ku guda jirnaa ayaan daawadayaal daawan doonaa aan ku xasuusiyo haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furto si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinku soo gudbino qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan ku soo gudbinayno muuqaaladayna si share garay oo asxaabtaada la wadaag si mar waliba ay u helaan wararkii ugu dambeeyay ee dunida daafaheeda ka dhaca ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay guddiga doorashooyinka Hirshabelle waxa ay shaaciyeen odayaasha iyo xubnaha bulshada rayidka ee soo xulaya saddexda kursi ee markaas maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu shaaciyay kuraasta markaas guddiga doorashada ay shaaciyeen waxa qayb ka ah hoob 86 oo ah kursiga kaliya ee isha sida gaarka ah loogu hayo marka loo eego deegaan doorashada labaad ee markaasi Beledweyne kursigan waxa uu noqonayaa kursi uu u tartamayo la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatanna uu ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabduqaadir oo markaasi dalka Hindiya ugu maqan arrimo caafimaad Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa horay kursigan isugu dayay in guddiga markaas uu ka celiyo isla markaasna uu ka qayb dhigo kuraasta dib loo dhigayo hadalkii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadanaa guddiga heer federaal iyo heer qaran iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle uu kaga dhaadhicin rabay hoob 86 in lagu daro kuraasta dib loo dhigayo waxa uu noqday mid suurtagali waayay kadib markii guddiga doorashooyinka Hirshabelle ay shaaciyeen maanta odayaasha iyo xubnaha bulshada rayidka ee soo xulayo saddex kursigaana uu qayb ka yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle علي جودلاوي waxa uu horay ugu ballan qaaday in markaas uu ku soo baxayo kursiga yaala Beledweyne isla markaasna uu ka qayb noqonayo baarlamaanka 11aad
cali guudlaawe waxa uu qayb ka yahay xubnaha abaalka siyaasadeed uu gashay la taliyaha amniga qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uuna sidaas oo kale cali xilligaani ku qasban yahay in abaalkii la gashtay iyo kadib markii la geeyey jowhar lagana dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle in xilligan uu u abaalgudo fahad oo damaciisa yahay in markaasi uu noqdo gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka kadib markii Muudey loo diiday in halka Baraawe uu u duulo isla markaasna kursigiisa maanta uu ku soo baxay xubin ka tirsan taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed kaas oo qayb ka noqonayo saraakiisha nisa ee kuraasta ka soo heshay deegaan doorashadooda guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed Siid waxa uu shaaciyay odayaasha iyo xubnaha bulshada rayidka ee soo xulayo ergada iyo kuraasta sumada markaasi aynu idiin soo gudbinay kuraasta waxa qayb ka ah hoob 15 hoob 86 oo ah kursiga indhaha lagu wada hayo hoob 274 ayaa sidaas oo kale lagu soo daray kadib waxay u muuqataa in Fahad uu markaasi xilligaani ka mid yahay baarlamaanka 11aad kadib markii boqolkiiba boqol Cali Guudlaawe uu u ballan qaaday in uu ka soo mid noqon doono baarlamaankaas isaga oo gudayo abaalka siyaasadeed ee kaga aadan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haddaba waxay tahay sirta halka ay ka qurunsan tahay sida Fahad uu ku gaari karo beledweyne oo ah halka kursigaas u yaalo waxay u muuqataa Faarax in tartanka uusan qayb ka ahaan karin maadaama dalka dibadiisa uu ku maqan yahay kursigana ergada iyo odayaashiisa la xulay kuraasta loo tartamayana lagu soo daray Fahad Yaasiin kursigaas waxa uu ka heli doonaa meel bannaan marka loo eego taageerida dhanka Hirshabelle uu haysto iyo madaxweynaha maamulkaas oo ku qancinayo kursigaas in uu ugu abaal gudo hase ahaatee beelaha daga Hiiraan waxa ay diidan yihiin in Fahad Yaasiin uu halkaasi soo gaaro horay Igraan Tahliil hooyadeed waxa ay sheegtay in marnaba aysan suurtagal noqon karin Fahad Yaasiin oo beledweyne ka soo dago isaga oo xasaanad leh baarlamaanka 11aad kamid ah in uu ka laabto beledweyne arintii markaas Igraan Tahliil hooyadeed ay horay u ballan qaaday waxa ay ku dhowdahay in ay markaasi noqon weyso mid suurta gasha marka loo eego Fahad in markaasi beledweyne uu soo gaaro wali waxaana hadlin dhammaan beelaha daga Hiiraan isla markaasna waxaysan ka hadlin arinta ku aadan Fahad iyo kursiga la soo dhajiyay iyo sidaas oo kale saameynta uu yeelan karo markana aynu aadno Baraawe waxa ka soo baxay mar kale Maxamed Abdalla Ahmed oo si weyn markaas ay u doondoonaysa dawladda Kenya maanta ayaa xildhibaankan lagu doortay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii uu ku soo baxay kursiga tirsigiisu uu yahay hoob 145 ee uu ku fadhiyo gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey waxa ayna markaasi ka dhigan tahay in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu meel cidlaha ka helayo gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka kadib dagaal adag uu la galay Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey ee 5 sano ee la soo gudbay isku siyaasad ahayeen waxay ka dhigan tahay in markaas Fahad isaga oo dantiisa gaarka ah ka eeganayo in kursigaas Muudey uu dhaafiyo hadii Muudey uu u tartami lahaa maanta Baraawe laga soo dooran lahaa waxa ku adkaan lahayd Fahad Yaasiin in markaas uu noqdo gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka maadaama Juffa hoosaad ahaan ay markaasi beeshooda u tartanto gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxa uuna xilligaani keensaday Maxamed Abdalla Ahmed oo kursigaasi ku soo baxay waxa uu qayb ka yahay taliska nabad sugidda Soomaaliya محمد waxa uu ahaa sargaal firfircoon oo saaxiibo dhow yihiin la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna sidaas oo kale Fahad wada shaqeynayeen muddadii filla Soomaaliya ay si wada jir ah u joogeen Fahad ayaa soo saaray saraakiil badan oo ka tirsan hay'adda NISA 8 Abriil 2016 ayaa taliska booliska Kenya amreen in la soo xiro maamulka bangiyada Jise ee markaas uu ka mid ahaa madaxa isla markaasna Maxamed uu bangigaas ku magacaawna waxa uu ahaa madaxa bangiga isaga oo markaa madaxda bangiga qaybka ahaa waxa uu si gaar ah u ahaa agaasimaha guud qaybta markaas ICT-da Maxamed Abdalla ayaa baxsad markaas ku jiray muddooyinkii dambe kadib markii amar lagu soo xiray oo markaas isla markaasna ka baxsaday booliska Kenya kadib waxa lagu eedeeyay in wax isdababaneen in markaas iyo tagrifal dhaqaalihii macaamiisha markaasi dhigaalka bangiga ee markaasi qaranka Kenya National Bank uu markaasi u dhacay isaga oo markaasi adeegsanaya doorkiisa ahaa agaasimaha qaybta ICT-da ee bangiga
maxamed cabdalla oo loo yaqaano maxamed sujuu oo weli baxsad ku jira ayaa sanadihii u dambeeyay ku sugnaa dalka Soomaaliya isagoo oo si dhow ula shaqeynayay taliskii hore ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaasna Fahad qaraabo dhow ay yihiin. Fahad waxa uu maxamed cabdalla u adeegsaday in uu markaasi kala dagaalamo siyaasiyiin markaas dhanka siyaasadda ay isku mucaaradsanayeen. sidaas oo kale maxamed sujuu waxa uu noqday xubinta kaliya ee markaasi sida aadka ah lagula dagaalamay gudoomiyihii koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaankii 10aad ee waqtigu ka idlaaday. waxa uuna noqonayaa xubin hadda kursigaas ku soo baxday si dhib la'aan ah. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kursigaas u tartamayo isaga oo wax culays iyo dhib ah kala kulmin haddii markaas baladweyne uu ka soo helo kursiga uu u ballan qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe. markana Kismaayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa hor istaag ku sameeyay agaasimihii hore ee markaasi nabad sugidda maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe waxa uu diidan yahay in markaas agaasimihii hore ee markaasi nabad sugidda Jubbaland xilligan siyaasad ahaan ay isku dhacsan yihiin inuu soo baxo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wararka aynu helnay waxay sheegayaan inuu diidan yahay kursi kamid ah kuwa yaala Kismaayo in agaasimihii hore ee nabad sugidda maamulka Jubbaland uu ku soo baxo. buuq iyo sidaas oo kale arrimo ayaa ka taagan Kismaayo iyadoo beesha iskale kursiga ay ogolaatay sida markaasi la soo tibinayo in taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland Cornel Khalid Cabdullaahi uu kursigaas ku soo baxa halka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu diidan yahay. kursiga buuqa uu ka jiro ayaa sumadiisu tahay hoob 136 waxaana 5 sano ee la soo dhaafay ku dhufadhiyay allaha u naxariistay Professor Maxamed Cabdi Gandi oo sanadkii hore ka geeriyooday kursigaasi. Axmed Madoobe ayaa shaqsi kale la rabo kursigaas waana Sahal Cabdullaahi Cumar oo loo yaqaano waxa uu sidaas isla markaasna loo yaqaano Cornel Khalid ayaa waxa cod dheer kula markaasi ku dalbaday in markaasi xaq beesha aan la duudsiinin ma cadda sida markaas ay wax noqon doonaan hase yeeshee warar markaasi ku dhow madaxtooyada Kismaayo waxay sheegayaan in Axmed Madoobe uu si cad u diidan yahay in markaasi Khalid uu kursigaas ku soo baxo. dhowaan beesha kursiga iskale waxay diideen in wax kasta oo aan ahayn rabitaankooda ay aqbali doonaan iyaga oo sidaas oo kale ka digaya in markaasi la boobo kursiga yaala Kismaayo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xilligani waxa uu wajahayaa caqabado adag oo kaga aadan dhanka kursigaas marka la eego xaaladda xilligani Kismaayo ka jirta. markana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaabka ay ku soconayaan arrimaha dardargelinta doorashooyinka. madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagareen waxa uu noqday madaxweynaha kaliya ee soo dhameystira xildhibaanada deegaan doorashada labaad waxaana maanta soo dhamaastay Baraawe xildhibaanadii markaas baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee laga soo dooran lahaa. dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabiyay kuraasta doorashada golaha shacabka ee laga sugayay deegaan doorashada labaad ee Baraawe. Baydhabo iyo Baraawe kuraasta taala ayaa la sheegayaa inay ku soo baxeen xildhibaano badan oo markaas dhanka saaxadda siyaasadda aad ugu cusub. inkastoo 19 kursi ay hadda yaala Baydhabo weli doorashadooda ay dhiman tahay haddana dadka badankood ayaa rumaysan in markaasi shakhsiyaad gaar ah kuraastaas loo helay. doorashada golaha shacabka ayaa inta badan markaasi la soo saaray xubno lagu wado in ay noqdaan kuwa codkooda lagu xisaabtamayo iyadoona Laftagareen ee markaas uu qaaday tilaabooyin ku aadan dhankaasi. gudoomiyaha guddiga siid ee doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Cabduqaadir Baafo ayaa waxa uu sheegay in Baraawe kuraastii taalay la soo dhameystiray. guud ahaan warkii waad kala socoteen barta wararka waa naga inta aad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayga. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay subscribe noo saar gambaleel furo daawada halkan waa barta wararka mahadsanid mar kale iyo mar kale.